diyaaradda waxay ka timid dhanka muqdisho waxay soo daabuleysay gargaar loogu talagalay bulshada qasax dheer ee tabaalaysan falaydkii hore si nabadgelyo ayuu kusoo degay kii labaad markii uu soo cagadhigan rabay qiyaas ahaan 7 ilaa 5 kilomitir meel garoonka u jirta markii ay soo maraayeen ayaa qoladii nabadiidka ahaa ee al-shabaab xabado ku tuureen diyaaraddu joog hoose ku duulaysa balse ilaahay uu ka badbaadiyay wax dhibaato ah ma aysan dhicin si nabadgelyo way kusoo degtay farkiina waa ay dejisay markii dambena si nabadgelyo ku kacday oo dib ugu laabatay magaalada muqdisho ma jira wax aad ku xaqiijinaysaan in shabaab ay xabadda ku rideen diyaaradda waa ay jiraan oo isla markiiba ciidamadii ayaaba ku baxay oo ka daba tegey marka mootooyin oo meel fog iyaga ay soo dhigteen ayay ku baxsadeen markii dambe waxay u baxsadeen dhanka xabaala barbaare haddii marka wadooyinkiina ay xiran yihiin oo laga soo geli lahaa degmooyinka iyo tuulooyinka ay dhibaatada haysay ama go'doonsan diyaaradihii gargaarka keeni lahaana xabad lala dhacayo maxaa xal u ah marka bulshada meeshaa degan arrinta maanta dhacday meesha qasax dheer keliya ma ahan diyaaradaha markasta waa la isku dayaa oo xabado meelo badan loo diyaaradaha lagu tuura waa ay jiraan midaasa dee tilaabo ayaan ka qaadi doonaa amniga aan kor ugu qaadi doono aan ku xaqiijin doono insha allah waxaan rajaynaa arrintaas saameyn inaysan ku yeelan doonin oo ayna dibdan usoo dhici doonin wax badanna laga bedeli doono amniga iyo guud ahaanba amniga degmadaba haddiiba diyaaraduhu aysan ku soo degi karin magaalooyinkii ay gargaarka u wadeen soo caqabad weyn idinkuma noqonayso sidaas ma dhayn annaga dhibaatada gargaarka dad la siiya keentayba waxa waaye wadooyinkaas xiran iyo caqabadaha ay ku hayaan kooxaha nabadiidka ah ee bulshada soomaaliyeed gaar ahaan hadda bulshada qasax dheere oo muddo dheer u go'doonsan waaye marka diyaaradaha way ay soo degi jireen mar kastana dee iskama ay deyni jirina waxaa jooga kooxihii oo amniga gaar ahaan kuwii amisom iyo ciidamadii soomaalida dhammaantood waxa waaye oo mar kasta diyaar oo gacanta ku haya meesha amnigeeda marka arrintan arrin oo maanta dhacday waaye oo horey uma aysan dhicin iyadana isla markiiba kooxihii falka geystay waa laga daba tegey inkastoo markii dambena ay baxsadeen oo la gaari waaye gargaar noocee ah ayay siday diyaaradda waxa waaye raashin oo ilmaha yararka loogu talagalay oo nafaqadarada haysa ayuu ahaa oo ay soo dhiibtay hay'adda WFP iyo World Vision marka xarun caafimaad oo goboleedka koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed gacanta ay ku haysa ayaa loo soo waday waa la xiriirnay weliba waan u sheegnay sidaan waxaan nahayna waan u muujinay guud ahaan iyo gaar ahaanba qasax dheere insha allah arrintaasna waxa waaye mas-uuliyad weyn baan iska saari doonaa annaga iyo ciidamada amisom hadda kadib inay nagu soo laabato ma rajaynayn insha allah